حاجة تمدّ ميوزيكا oo waliba daaniga xaggayga kamanka ugu weyn waxaan qabaa miyuusiga Soomaalidu markay dhabta tahay saddex armuurood baad u baahan tahay kaman durbaan iyo foori saddexdaa haddaad hesho waxa iyo codkii way dhan tahay marqaankayga lagama xiiso goynayo xagga fanka kaman tumidda markay timaado xudeydii de waa number 1 aniga xaggayga laakiin dad kale jiro oo amba isaga ka yar amba ku dhow daada laakiin iyaguna meel sare safka hore ku jira Axmed Naaji Saad ayaa kamid ah Umar Duule markuu kaman garaacaya Allah u naxariistay waa joogsanaysa meel joogta bidde oo deeyanka ka baxaya iyo sida uu isku xidhay xarkaas waxay ahayd wax lala yaabo Daawud Ali Masxaf uu kaaga oo hindi haduu kaman markuu fadhiisto tumayo kaaga oo Saalax Qaasim Naaji oo aynu programkan ku furnay kamankiisi ku kamantumo Saciid Harawa waa yani de waa dhiiga istaagayay Faadima Cabdullaahi Mandeeq aniga qalbigayga gashay bari hore Xaliima Khaliif Magool de waxa way dayax Hiba Maxamed oo heesteedii ugu horeysay aan ku bartay ahayd ya heestii jacaylka ahayd naf jacayl haleelay Faadima Qaasim Hilowle markay afka furto oo nooc walba ku qaadayso waa ajiib Caasha Cabdo oo af Soomaali iyo af Soomaali iyo af Carabi afaf badan ku heesaysa qof Soomaali oo la midii ma jirto xagga afafka ay ku heesayso baxsan oo markay noqoto heesaha wadaninimada marka la qaadayo baxsan cid ka horeysa ma jirto ragga markay timaado xagga codka Umar Duule oo codkiisu uu yahay mid ku dhaqaajinaya Maxamed Salmaan oo dadka Soomaalida inteeda badan ay isku raacayaan inuu yahay waxa la yiraahdo waa boqorkii codka Soomaalida Cabdinuur Allaale waxa uu yahay xaggayga nin ambartay dhawaan 10 sanadood ugu dambeeyay waa reer Djibouti dad fara badan oo kala jiro Cusmaan Axmed Gacanlo Maxamed Gacanlo iyo Maxamed Yuusuf iyo dad caynkaas ayaa jira oo iyagu waqtigoogii markay way dhinteen Allah u naxariistay aad iyo aad wanaagsan waxaan qabaa Maxamed Cabdullaahi Xasan taariikhdiisa marka laga soo gudbo 100 sanadood ugu dambeeyay dad gabayaayo waaweyn waynu ummadda Soomaalidu way leedahay laga yaabo inay nool yihiin intooda badanna ay dhawaan laakiin waxaan qabaa timacada inuu intaas oo dhan ka duwan waayo waqtiga la joogo sida uu uga hadlayo waxay ahayd si cajiib waqtiga soo socda dardaaranka uu dhigayo oo maanta qaarkood aynu arkayno waxaad moodaysaa inuu saddexaad leeyahay oo mustaqbalka uu ku arkayo cali cilmi afyare gabayadiisa haddaad dhagaysato waxa weeye nin balaaqadiisa iyo sida uu hadlayo iyo sida uu dhigayo aad iyo aad ugu raaxaysanayso Carays Ciise wuxuu lahaa gabayo si gooni ah ayuu u gabi jiray oo aad u qoto dheer oo farsamo miran ah oo iyaduna u gooniya isaga abwaanada dajiya riwaayadaha heesaha amuraha sameeyo oo aad iyo aad u culus Hadraawi oo nool oo maanta la yaqaan baaxadiisa iyo ballaadhkiisa la yaqaan Xasan Sheekh Muumin oo qofka qura ee la igu yidhi markaan research ka sameeyay waa abwaanka qura ee laba riwaayadood waa sidii laba buug oo kale laba riwaayadood mar qura qori kara tan qoriya isla markii laba riwaayadood soo dejin kara qof caynkaasi ma jiro musaqaf weyna Xasan Sheekh Muumin waa Xuseen Farax waa mucjisad buu hayso markuu heestu sameeyay riwaayadu sameeyay waxay ahayd classic ayay noqdeen maanta la bareedayay Cali Sugulle oo caan ah dadka caynkaasi waa abwaanada riwaayadaha iyo heesooyinka ay noo sameeyay taariikhda Soomaalidana way ku jiraan marka dad la noqdana ummadda Soomaalidu ay ka toosto waxa maanta haystana waa dadka loo baahan yahay in la bareeriyada iyo museumska iyo la dhigo oo dhalinyarada iyo rag iyo dumar carruurtu ay barato